aniga iyo madaxweynaha Kenya waxaan ka wada hadalnay arrinta qaxootiga mabda'iyan Soomaaliya waxay jeceshahay ku dadaalaysaa dadkan qaxootiga in dib dalka loogu celiyo laakiin si waafaqsan nidaamka iyo deganaanshiyo waafaqsan waxaan mar kale rabaa inaan u mahad celiyo dawladda iyo dadka Kenya iyo madaxweynaha Kenya intaba muddo 25 sano aan martigeliyo dadkan waxbaray qaarkood jaamacada ka soo saaray qaarkood dugsiyo sare ka baxeen qaarkood xirfado barteen oo Soomaaliyana ay u baahan tahay maanta marka su'aasha laga hadlaa waxay tahay sida ugu sahlan muxuu ahay dadkani ay u noqon karaan laakiin ma la celinayo ma la noqonayo ma aha su'aasha taasoo ayadana si nidaamsan oo tartiibsan laakiin qoorqabad ma jiri doona hadii alla yiraahdo